أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. halkan waxaan ka salaamayaa ummadda Soomaaliyeed dhammaan reer Somaliland qaasatan waxaan salaamayaa inta af Soomaaliga inta muslimiinta ah saayimiinta waxaan leeyahay Ramadaan mubaarak dhammaantiin. caawa waxaan halkan soo fadhiistay oo isoo fadhiisiyay oo iga yaabiyay iskuulka abaariso ee ay u hadlayso Sahre halkan ma aqaan suxufi Cabdimaalig Coldoon yaa iskuulka kama hadlin keligii caruur yaryarna waxba kama sheegin unkadoo dhaco xeeshaa dhacbaleeyay waxaad noo sheegtay inaad Sahray Cabdimaalig ku wanjalay ee xadhiga u qoolay inaad tahay yaa kuwii xadhiga u qoolay inaad tahay baad sheegtay si waxaad ogaataa maanta hadduu dar ilaahay jeelka ugu dhinto oo uu dar ilaahay u baxo inaad u qoolantay adigu saa ula soco kuwa noo tilmaaman ee shaabaddu noogu dhigantay inaad tahay iskuulkana ninkii sameeyey ee wax ka sameeyey ee maamulay ee soo agaasimay ee dadkii wax ka lahaaya ayaa sheegay wuxuu yahay oo idin yidhi hubiya Cabdimaaligna awlaad waxba kama sheegine iskuulka maamulka ka socda ayuu wax ka sheega kastarane yaa cafiskana waxba cafis ha weydiin madaxweynaha markaad ogaatay amsan asharlashan inay soo daynayso ayaad istiri waan ku ognahay yaa xaafadaasoo dhamma inay iskuulka dhigatana waa la ogi yaa laakiin adiga iyo xaafadiina yaa waxaa daba dhigay Cabdimaalig ayaan ka yaabanahay Cabdimaalig caawa hadduu go'o adiga iyo qaar kaloo badan ayaa u qoolan saa ula soco waxaan kuu sheegayaa waddanka Somalilandna in la wada leeyahay Cabdimaaligna uu yahay samafale waxay dawladdu qaban weyday qabta oo dadka caawiya masaakiinta jilicsan yaa markaa wax markii hore muqoraf ku raagay oo xalaali haystaa jirin baa imikana boos baloor iyo beerbad ka bixi weydeen iyo qof miskiin ah oo dadka caawiya masaakiinta oo meel ku soo xidhaan yaa awlaad yaryarna waxba kama sheegin awlaadtiisa iyo naagtiisana maba gaari kartid kabahoodaanad gaari karin waxaad garatay maaha mar dambana codoon magaciisa afkayuu kaaga dhicin anigu Hargeysaan kula joogaa yaa Hargeysa ayaan kula joogaa wiilka bacdi baan kula joogaa Hargeysa waxaan u sheegayaa hablaha garxajis weyne Cabdimaalig miyaanu hablala dhalan Cabdimaalig rag iyo dumarba waa laysu raacay waxaa naag halkaasi soo tubtay waa idinkii arkayay na maxaa cadhadii idinka qaaday maxaa idinku dhacay yaa muusena meesha uu ka tegay dumarka kaga oohinaya dumarka kaga oohiye meesha uu ka tegay muuse saamiri ma haysanaya meesha yaa marka ha soo qaadin Cabdimaalig suxufi Cabdimaalig waa nin ilaahay yaqaana waa nin muumina waa nin islaamka u gargaara dadka jilicsan u gargaara weeyaan noocaaga iyo nooc lamidina ma soo qaadaan subxaanaka yaa cadiim waxay tirsaa halgan baana nawal garanaya habliisoo halgamay qaar badan baa nool tiraba 3 baan hubaa inay noolyihiin hayna Axmed Dalawaas ka mid ah yaa hayna Axmed Dalawaasiiba ka mid ah hablihii soo halgamay xareeda ka mid ahayd soo waxaad garatay maaha haddaba ha sheegan adigu halgan markaad ku guuldarraysatay beeshan eed haysan garan weyday ayaad la daba gashay dacaayad iyo inaad kolba meel ka dacweyso iyo xaafadiinu maxakabadii iyo meel walba iyada haysatee waa laydinka fujinayaa shaqana waa laydinka samaynayaa baan ku idhi dhammaan waxaan salaamayaa inta muuqayga iyo araggayga taqaana ee codkayga taqaana ummadda Somaliland insha Allah bidmillaahi kariimna saynu doonayno ayaynu